Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusoo dhaweey HMC. Maanta videogan waxaa uga hadli doonaa sidee ku noqon kartaa videographer iyo maxaad u baahan tahay inaad ka ogaatid saad u noqotay videographer. That's coming up. Daawasho wanaagsan. waxa u horeeya aad u baahan tahay inaad ogaatid markay imaado videography waa inaad fahantaa marka koowaad waxa loola jeedaa ama farqiga u dhaxeeyo videography and a videographer. hadaan tartiib u kala dhigo, videography waa processka sameynta ama edit gareynta ama qurxinta videoga iyo soo saarista videoga. laakiin halka videographer waa shakhsi sameeya ama practice gareeya videographiga oo ulajeedkiisu yahay inuu iska hormariyo ama ka fiicnaado sidoo shalay ahaa. runtaadaan ka hadlo, xirfadaan videographnimada aad bay u fududahay, laakiin waxay u fududahay qofkii fahamkiisu uu fudud yahay, aragtidiisuna ay dheer tahay. inaad baratid videographnimada wax weyn kaaga ma xirna. waxaa jira iskuulo bixiya maadooyinka filmmaking ama videographnimada oo adduunka dhinac walba ugu yaala. Soomaaliya kuma yaala umaleynaa, laakiin adduunyada dhinac walba ugu yaala, qaarna aad online ka heli kartid. laakiin hadaadan awoodo inaad iskuul u gashid oo lacagtaas aad bixisid, hadda waxaad ku nooshahay qarni oo wax walba easy lagaaga soo dhigay. waxaad u baahan tahay un computer iyo internet. That's all. waa isbari kartaa saa aniga isku baray. online ayaad gali kartaa, YouTube ayaad gali kartaa, website ayaa jiro bixiyo casharo free ah, waxaa jiro koorsooyin free oo la qaato, Udemy ayaa jirto, page badan ayaa jirto aad cilmi ka faa'iideysan kartid. waa hadaad adiga diyaar u tahay inaad waqti gelisid, aad sabar muujisid. videographnimadu waxay leedahay meelo badan ama qaabab badan aad ugu shaqeysan kartid oo lacag ugu samaysan kartid ama dadka ugu caawin kartid. waxaana kamid ah qaybahaas inaad aroosyada ama weddingska duubtid, music videoska inaad duubtid, interviewska inaad duubtid, advertisement xayeysiimaha, eventska, xalfadihii, short filmski, feature filmski, ayu nooc qaab walba jeceshahay qaabkii adag ku fudud qaabka ka hees ayaad ugu shaqeysan kartaa. marka uu maana duubista iyo sameynta videoyada waxyaabaha aad u baahan tahay aad bay u fara badan yihiin, laakiin hadaan soo koobno, hadaan ku bilaabo waa kow, waxaad u baahan tahay camera nooc walba ahaato, kamerada qaali ahaato, raqiis ahaato, doesn't matter. waxaa muhiim ah inaad camera walba aad haysatid ama aad awoodid inaad gadatid, inaad ku shaqeyn kartid. muhiimadu waa kameradaada inaad baratid, muhiimada ma aha camera qaali inaad ku shaqeysid. xigtana waxaad u baahan tahay lens. markii loo imaado sawir qaadinta ama photographiga, qofka hadduu bilaabayo inuu sawir qaado noqdo oo professionkiisa photography ka dhigto, uma baahan inuu lens qaali soo gato ama uu qarash u geliyo lensigaas, sababtoo ah waxaa ku filan kit lensiga. laakiin markay imaato videography, kit lens kuguma filna. waxaad u baahan tahay marka lens specific ah inaad soo gadatid oo ku saabsan ama qusaysa shaqada adiga qabanaysa. markaan ka soo gudubno lensiga, waxaa ku xiga oo u maanayna waa memory. memory waa sanduuqii aad ku duubaysay videoyada. haduu sanduuqaas uu yahay sanduuq yar, video badan ma duubi kartid. kaararka waxaa jiro class ay kala leeyihiin, waxaa badanaan ugu fiican class 10 ka dhahayaan. sawirka meelahan ayaa ka arki doontaan. memory doesn't matter the name. aniga waxaan isticmaalo waa SanDisk, waa kan ayaan isticmaalaa. laakiin muhiimadu waxa weeye shaqada qabanaysid memory ku deeqa ama ku awoodo aad ka jarin dhexdan kaaga istaa inaad soo gadatid. hadaad rabtid inaad YouTube iyo vlogger noqotid, waxay u baahan 16GB ama 8GB inuu kugu yahay. laakiin hadaad tahay qof anoo kale oo ku shaqeysanay oo xalfadahan barnaamij duubay, waxaa u baahan tahay hal memory meel 2 3 4 5 inta awoodid si aad barnaamijkaas si nadiif u qabsato ama shaqadaas si nadiif u qabsatid. tan saddexaad rabo inaan ka hadlo waa batteriga. batteriga waxaan dhihi karaa waa kan ugu muhiimsan markii loo imaado camera. ani ahaan waxaan soo gadan lahaa camera raqiis ah, lens fiican, memory badan iyo batteriyaal badan. taasi waxay iga saacidaysaa inaan waqti badan wax duubo, wax badan wax ku duubo, anuuna haysto camera raqiis ah. magarad muhiimadu waxa weeye waa inaad qalabkaaga ugu muhiimsan oo aad ku shaqeynaysid iyo kana wax ku shubanaysid inay ku badan yihiin oo ah memory battery. u maana miiskaad ku shaqeysan lahayd oo ah computerka. computerku waa saldhigi, waa meeshii aad yaanyadaada iyo bariiskaaga aad ku jaran lahayd, aad ku shuban lahayd, aad ku shaqeyn lahayd. computerka haduu yahay computer daciif ah ama computeradii hore u yahay, dhib baa kala kulmaysaa. heer wuxuu gaarsiinayaa uu ku nacsiyo shaqadaada, koos kuma fududeynayo inaad shaqadaada si fiican oo tartiib ah u qabsatid. maanta dhan lag iyo Allah musta'an inuu renderka stop gareeyo, inuu maxasan inuu isdamiyo, inuu culeys noqdo. waxaasoo dhan ciladahaas waxaad ugu badbaadi kartaa inaad marka u horeyso aad isgelisid qarash fiican, investment ku sameysid oo aad soo gadatid computer adag oo processkiisu dheer yahay, processkiisu weyn yahay dhehe oo fiican yahay, speed yahay, oona adag, oona qaabili kara shaqo adag.
especially waxaa la doortaa laptopyada gaming ah kuwaas ayaa waxay ugu shaqeeyaan editingka ama video sameynta si wanaagsan. Marka taas ku soo gudbo waxaan ku xijin lahaa content creators-ka ee badan iska eldoofan laakiin gadaashi damba ku noqota cilad weyn taasoo ah storage. Waa boqolkiiba boqol muhiim sababtoo videoda aad duubtay ama videoyasha aad caawa ka soo shaqeysay hadii aadan u haynin meel aad backup u shubid maaha computerkaaga meel kale oo aad backup ahaan ugu shubid videoyas waxaad khatar ugu jirtaa inaad waysid videoyas inuu virus kaaga dhaco drive-kaas inaad shortcut ay wada noqdaan wax walba oo yaa dhici kara marka waxa kugu mudan oo adigina aad kugu qasba inaad ka taxadirtid waxaan walba dhicin waxaan kula talin lahaa marka aad awoodo ilaah ku siiyay fursadaas inaad soo gadatid hard drive storage-kiisu weyn yahay ama online ka gado ama soo device soo gado computerki waa istaa camerada waa istaa lensiga waa istaa wax walba istaa ka dhimo kugu xigo waa software-ada video loo edgaray aad bay u badan yihiin laakiin kuwa ugu caansan oo dadka badan isticmaalaan waxa kamid ah Movie Makers, iMovie, Final Cut X Pro, Adobe Premiere iyo Sony Vegas iyo kuwa badan aniga ahaan waxa isticmaalaa Sony Vegas bilaaw markaan bilaabay ku bilaabay ilaa hadda isticmaala asaan jeclaaday asaan fahmay kuwaas hadaadan awoodin inaad gadatid maaha khasab maaha inaad niyad ka jabisid waa inaad fiirisa meel kale waxa jira barnaamijyo badan oo free ah oo aad wax ku sameeysan kartid oo video ku edgareyn kartid saad u fahantid ku xiran tahay barnaamijka soo aad barnaamijkii si fiican u fahantid Adobe Premiere ayuu kaaga fiicnaan doonaa kaad fahantay videography wuxuu ku xiran tahay waa saad wax u fahantid the more you understand the more it get easy everything hada fahantid wax walba ku fudana albaabka ku furi aan u soo degno dhinacan iyo stabilization-ka videoga inuu stable yahay waxa laga wadaa videoga iska hadda aad daawanayso waa video stable dhaqaaq ku jirin shishay ku jirin laakiin stable ka ahayn waa video shaky ku jiro oo aadan badana daawan karinba waxaan kugu talinayaa inaad investment ku sameysid tripod kuwa qiiska aad isku soo qabsan kartaa oo aan qaaliga ahayn markaad bilaawday laakiin hadaadan bilaaw ahayn aad tahay qof oo waxaan shaqadan ku soo jiray waxaan kugu talinayaa inaad soo gadatid tripod aad u adag oo fluid head leh caawinaya markaad sameynaysid movementka up and down and left to right hadaa awoodo ilaahay inuu ku dhiibo kista tolkaaga inuu shidan yahay waxaan kugu talinayaa inaad soo gadatid stabilizer caadiga ah si videogaaga u noqdo ama u duubto video aad qurux badan oo high quality noocyo badan ayaa jira oo loo stabilize gareeyo videoga waxaana kamid ah soo qaado tripod glidecam handheld stabilizer waxa jira kala qaabka loo stabilize gareeyo maxaa la inaad ku xirtid slider alaam musta'am waxa jira shoulder ring qaab badan ayaa jira loo stabilize gareeyo laakiin waxay ku xiran tahay all budgetka iyo jeebkaaga soo qoyn yahay tan xiga aan rabo inaan ka hadlo waxa weeye hadaad jeceshahay inaad dubto mustaqbalka xalfado ama aroosyo ama video kale oo ka duwan oo indo ah oo gudaha ah banaanka aan ahayn waxaad u baahan tahay inaad soo gadatid oo listigaaga ku darsatid lightskaas ka saaciday in videogaaga qurux badnaado oo iftiinkiisa iyo nuurkiisa iyo shaxshaxdiisa iyo shunuucdiisa ay muuqato last but not definitely least listigan waxa ugu dambeeya waxa ku jira waa audio maqal ama cod videogaaga haduu qurxan yahay codkiisa every baab qof daawanaysa ma laakiin videogaaga haduu quality-kiisu xun yahay laakiin si fiican lagu maqlayo cod ka saaran sound effect iyo codkaaga iyo everything saaran videoga uu yahay video fiican videogaas ku daawan karaan oo waqti waa la gelin karaa waxa jiro mikrofoono badan iyo qaabo badan oo kala duwan oo loo isticmaalo mikrofoonada tusaalahaan ka hadda haysto oo lavalier make up straight camera ku xiran codkana toos u duubaya iyo waxa jira mikrofoono kale oo recorder ah sida company-gan Zoom Zoom H4 Zoom H5 way badan marka kii adiga aad awoodid oo qiimahaaga jeebkaaga ku goonay inaad soo gadatid laakiin waa khasab inaad microphone aad haysatid codku waa cusbada videoga hadaad ka iloodid videoga dhadhan ma yeelanayo iyo macno soo isku dadaal inaad mar walba ka taxadirtid aadna ku dadaashid waa inaad la socotaa dadka meesha ugu sareeya ka jooga businesskan waxay sameynayaan day to day saad adiga ay kugu noqoto motivation ay kugu noqoto inspiration aad waxaan u sii sameysid aad gudaha u sii gashid maalin wax cusub inaad sameysid xirfadan videography-mada waxay u baahan tahay dhiirigelin badan iyo Allah musta'an inaad haysatid inaad awood u leedahay inaad waqtiyada qaarkood aad dhex jeexdid oo aad moodid because sababtoo ah videography-mada waa shaqo waqti dheer qaadanaysa hawlo soo sheegay oo culus mar qaarkoodna waxay noqotaa shaqo caajis badan midda kale videography-mada waa xirfad u baahan 100% sabr hada sabr haynin
godkaaga biyo kugu soo galay qof walba harqaan wuu furan karaa laakiin qof walba harqaanle ma noqon karo taasina waxay la mid tahay videography qof walba camera uu soo gadan karaa oo video uu duubi karaa laakiin qof walba videographer sax ah professional ma noqon karo mar labaad iyo mar saddexaad aad baa u mahadsantihiin daawashada inta daawateen barnaamijkan waxaan idinka tagayaa wax walba waxa lagu gaaraa maskaxda aad ka shaqaysid iyo dadaal yar ku dartid marka waxba yaa laga bajin hor u soco khayr baan ku rajeynayaa inoo video xiga nabadino